qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku qorneyd habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay warqadaasi in aysan Jubbaland qusaynin oo ay tahay mid sharciga iyo dastuurka dalka baalmarsan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Warsame Darwish ayaa saxaafadda u akhriyay warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hanaan xor iyo xalaal ah, ujeedaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubbaland uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay cadeynaysaa inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubbaland. dowlad goboleedka Jubbaland waxa ka go'an inay ilaaliso sharciga gaar ahaan sharciga khuseeya arrimaha doorashooyinka. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay soo saartay war-saxaafadeed siyaasadeysan kaas oo tilmaamaya in ay doonayso inay farageliso doorashooyinka Jubbaland sidii horey uga dhacday dowlad goboleedyada qaar ayna ka dhalatay khasaarooyin naf iyo maalba leh. mana jiro qodob awood u siinaya inay farageliso doorashooyinka dowlad goboleedyada. dowladda federaalka saxafadeedkeeda waxay ku sheegtay in qodobka 46aad ee dastuurka qaranka uu tilmaamayo inay iyadu farageliso natiijada ayna si rasmi ah ugu dhawaaqdo. qodobkana sidaas ma qabo ee waxa uu sheegayaa in nidaamka matalaadda uu ahaado mid furan, in nidaamka matalaadda uu ahaado mid isku filan. arintaasna waxay ku caddahay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland. diyaar ayayna u tahay in ay ilaaliso dastuurka. sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland waxay diyaar u tahay in ay helaan shacabka Jubbaland xaqa matalaadda isku dheelitiran sida ku cad qodobka 22aad ee dastuurka Jubbaland. ugu dambeyntii dastuurka dowladda federaalka wuxuu si cad u sheegayaa qodobada kor ku xusan in dowlad goboleed kastana uu ku dhaqmo xuquuqda uu dastuurku siinayo. wixii cawaaqib xumo ah oo ay keento faragelintaas sharciga baalmarsan waxaa mas-uul ka noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowlad goboleedyada dalka sida Hirshabelle iyo Galmudug ayaa sidoo kale ka hor imaaday warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.